Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa kormeer ku tegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan oo dhowaan laga saaray ururka nabaddiidka Al-Shabaab. Jenaraal Biixi oo ay kormeerka ku heliyeen taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Sareeya Guuto Tawane Axmed Maxamed iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa soo maray deegaanada kala ah Teedaan iyo Sooman, Aaga Moqokori iyo Aboorey. Taliyaha ayaa ka dhageystay warbixino saraakiisha ciidanka ee ku sugan meelaha uu booqday, isagoona ugu dambeyntii halkaas kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee qaybta ka ahaa gulufka colaadeed ee looga saaray ururka naflacaariga ah ee Al-Shabaab deegaanada ay uga sugnaayeen gobolka Hiiraan. Waxaa bilihii lasoo dhaafay guud ahaan dalka ka jiray howlgallo sifayn ah oo dalka looga ciribtirayo kooxaha caadeystay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed, iyadoona ay howlgalkani iska kaashanayeen ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo u adkeysan waayay dhaca iyo dhibaatada arxan-laawayaasha Al-Shabaab. Cabdiwahaab Colow, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.